haddii hal ilbiriqsi oo keliya uu noloshaada beddeli karo ma rumaysan lahayd ilmo yar oo dhintay ayaa si mucjiso ah u soo noolaaday laakiin nolol labaadku wuxuu noqday bilowga dagaal ka dhan ah aadanaha oo dhan taleefanadii ayaa cirka u duulay magaalooyin ayaa gubtay shimbiro ayaa isu beddelay awood aan la joojin karin iyo nin naftiisa u huray si uu runta u muujiyo maxaa dhab ahaantii ka dambeeya masiibadan sidee ayay shimbiruhu u noqdeen cadowga baniaadamka yaa badbaadin doona dunida marka tiknoolajiyadii la isku halayn jiray ay isu beddesho hub dilaa ah daawo ilaa dhammaadka sababtoo ah waxaa dhici doona ilbiriqsiyada ugu dambeeya waa mid aadan filan karin ilmo yar oo dhashay wax ka yar hal daqiiqo ayaa wejigiisu noqday mid ero leh neefsashona ma lahayn hooyadii waxay ku jiiftay sariirta isbitaalka iyadoo si murugo leh u ooyeysa isla wakhtigaas shimbir mucjiso ah ayaa ka soo duushay daaqadda waxay ku dulbooday xudunta wiilka yar waxayna afkeeda ku taabatay laabtiisa dhowr jeer ilbiriqsiga xigay wiilkii si mucjiso ah ayuu u soo noolaaday shimbirtu waxay siisay nolol labaad taasoo ka dhex abuurtay xiriir qadar ah oo u dhexeeya isaga iyo shimbiraha wiilku wuxuu go'aansaday inuu noloshiisa oo dhan u huro ilaalinta badbaadada shimbiraha laakiin maalin maalmaha ka mid ah ninkii wuxuu ogaaday waxyaab leh shimbirihii waxay u muuqdeen kuwa ay saamaysay awood qarsoon waxay bilaabeen inay isweeraraan oo isdilaan sidii kuwa waashay ukumaha cusub ee dilaacay oo aan waalidkood quudin gaajo ayay la ildarnaayeen oo ka soo dhacayeen buulkooda nafaf aan waxba galabsan ayaa mid u dabargo'ayay ninkii qalbigiisu wuu jabay markuu baaritaan sameeyey wuxuu ogaaday in sababta dhimashada shimbiraha ay tahay shucaaca ka baxaya tiirarka isgaarsiinta wuxuu keligiis u tegay goobta dhismaha si uu shaqaalaha ugu qanciyo inay joojiyaan balse wuu ku guuldaraystay isagoo aan haysan door kale wuxuu gargaar ka raadsaday dowladda hase yeeshee wuxuu ogaaday inay wada shaqayn la leeyihiin shirkadaha markuu quus noqday wuxuu magaalada dhex wareegay si uu uga wacyigeliyo dadka khatarta ay taleefoonnada gacanta ku hayaan ee ku wajahan shimbiraha laakiin halkii la fahmi lahaa waxaa loo arkay nin waalan oo warshad laga eryey dhanka kale shimbirihii weli way isdilayeen si uu arrintan u joojiyo ninkii wuxuu fuulay tiir isgaarsiin isagoo qalbigiisa ka buuxo caro wuxuu go'aansaday inuu naftiisa u huro si uu u badbaadiyo shimbiraha markuu xarig isku xiray isagoo aan ka labalabayn ayuu istuuray wuxuu ku dulaadlaadsanaa tiirka boqolaal iyo kumanaan shimbiro ah ayaa ku soo ururay agtiisa sidii iyagoo u ducaynaya maalin maalmaha ka mid ah dhammaan taleefoonnadii gacanta ee dadka si lama filaan ah ayay u duuleen sida mawjadaha badda ayay u qulqulayeen dhanka xaafadaha nin markuu hurdada ka kacay wuxuu arkay inuu ku hareeraysan yahay taleefoono wuu argagaxay shaashadaha taleefoonnadu waxay soo bandhigayeen muuqaallo cabsi leh wuxuu isku dayey inuu kala riixo si uu u baxsado balse awood uma yeelan si kedis ah taleefoon kasta wuxuu muujiyey sawir shimbir yar kuwaas oo dhammaantood u dhintay sababtiisa markuu ogaaday in xaaladdu halis tahay ayuu isku dayey inuu cararo balse taleefoonnadii ayaa ka weeraray dhinac kasta kuna celiyey sariirta waxay sameeyeen duufaan ku wareegsan si adag ayay ugu xireen mid ka mid ah taleefoonnada ayaa afkiisa galay kadibna kuwa kale ayaa si wada jir ah calooshiisa ugu shubmay markay tiradu badatay jidhkiisu wuu qarxay dhammaan taleefoonnadii magaalada ayaa la jiiday kumanaan qalab ayaa isu ururay sidii shini ugu dambayna waxay sameeyeen baal weyn oo gorgor ah waxay qabsadeen tiirka isgaarsiinta si xoog leh u ruxeen xididadiina kala baxeen dhulkana ku dhufteen kadibna taleefoonnadii waxay ku soo urureen jidhkii ninka si tartiib ahna u liqeen isla markiiba dhammaantood waxay isu beddeleen shimbiro cirka ayay u duuleen waxayna sameeyeen shimbir weyn oo bilaabay weerar ka dhan ah bini'aadamka meel kasta oo uu tago magaalooyin ayaa la burburiyey waddooyin ayaa la rogay baabuur badan ayaa qarxay dadkuna waxay ku xanibmeen dab dhexdiis nin shimbirku wuxuu ciddiyihiisa waaweyn ku qabsaday dad aan waxba galabsan cirka sare ayuu u qaaday kadibna meel aad u sarraysa ayuu ka soo tuuray nasiib wanaag daashan ayaa wakhtigii ku yimid wuxuu isticmaalay shabakad kalluumaysi si uu dadka u qabto nin shimbirkii oo caraysan ayaa weeraray daashan wuxuu hawada u tuuray shabakadii wuxuuna joojiyey weerarka markaas nin shimbirku wuxuu isu beddelay taleefoonno tiro badan oo ku hareerayey daashan laakiin daashan si lama filaan ah daashan wuxuu qabsaday gaari gaashaaman si uu uga baxsado balse nin shimbirku wuu liqay xilligii halista daashan wuxuu sii daayey qarax neef ah oo aad u xoog badan wuxuuna ka soo booday calooshiisa inkastoo la mooday in khatartu dhammaatay nin shimbirku si mucjiso ah ayuu mar kale u soo noolaaday korontadii daashan way sii dhammaanaysay sidaas darteed wuxuu u dhaqaaqay warshad tamar nukliyeer si uu isu dallaco nin shimbirku wuu ku soo weeraray balse shucaaca ayaa u diiday inuu soo dhowaado saynisyahan ayaa taas ka faa'iidaystay wuxuuna sameeyey gaari shucaac ah oo ku xiray nin shimbirka laakiin qalabku wuu ciladoobay wuuna baxsaday mar kale wuxuu galay jidhka saynisyahanka wuxuuna bilaabay burbur waddooyinka ah daashan markuu yimid ma uusan ku dhicin inuu weeraro maadaama uu jidhka saynisyahanka ku jiray nin shimbirku wuxuu jarjaray daashan warana ku muday Xiaomi oo iyaduna ah robot waxay qaaday meydkii daashan waxayna ku soo celisay shaybaar
iyadoo adeegsanaysa tiknoolajiyad sare waxay soo noolaysay daashan tibkiisana cusboonaysiisay iyadoo abuurtay nooca 2 eber nin shimbirku wuxuu tegay garoon dad badan joogaan wuxuuna albaabada ku xiray taleefoono wuxuu doonayay inuu shucaac ku gubo dadka sida ay shimbiraha u gubeen markuu diyaarsanaa daashan 2 eber ayaa yimid nin shimbirku wuxuu isu beddelay 100 robot balse daashan 2 eber wuxuu sameeyey hub 36 eber degree ah oo rasaas ku furay dagaal adag ayaa dhex maray ugu dambayn daashan 2 eber ayaa ku qabsaday nin shimbirka dhulka ku jiiday hase yeeshee dagaalku wuu sii socday ilaa korontadii daashan dhammaatay markuu nin shimbirku rabay inuu dilo noocyo yar yar oo daashan ah ayaa yimid mid kasta oo qabsaday qooley waxay ku hanjabeen inay dili doonaan haddii uusan ka bixin jirka saynisyahanka ugu dambayn wuu ka baxay daashan wuxuu geeyey tiirka isgaarsiinta shucaacii ugu badnaa ayuu furay nin shimbirku wuu u adkaysan waayey wuxuuna isu beddelay dambas isla markiiba tiirkii wuu qarxa